بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasto aad joogtaan. halkani waa Marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. qodobada aynu barnaamijka daawadayaal ku eegi doono hadii Allaha awood leh uu raali ka noqdo waxa ka mid noqon doona Azerbaijan oo soo saartay go'aan adag oo ka dhana Armenia, dagaal ka dhacay Nagorno-Karabakh, xiisad ka jirta halkaasi iyo macluumaad dheeraad ah oo laga soo saaray qasaarihii Azerbaijan ku gaaray dagaaladii 6 toddobaad ka soconayay Nagorno-Karabakh. markale ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. wararka ka imaanaya gobolka Nagorno-Karabakh ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto xiisad xooggan oo u dhaxaysa ciidamada dowladaha Armenia iyo Azerbaijan kadib markii la sheegay in ciidanka Armenia ay bilaabeen daandaansi xooggan iyada oo habeenkii xalay ilaa saakay la sheegay in dhowr madfac ay ku soo tuureen ciidanka Armenia fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada Azerbaijan iyadoo la soo wariyay qasaare dhaawac ah oo qaar ka tirsan askarta Azerbaijan soo gaaray. Armenia ayaa beenisay inay iyadu duqeyn ka fulisay gobolka Nagorno-Karabakh isla markaana ay beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidanka Azerbaijan, halka Azerbaijan ay soo bandhigtay goobaha ay ku dhaceen madaafiicda la soo tuuray. waxaana taasi ay keentay in ciidanka Azerbaijan iyaguna goordhow ay dhowr madfac ku ganaan goobo ay ku sugnaayeen ciidamada Armenia oo ka tirsan gobolka Hadrut iyadoo aan la ogeyn madaafiicdaasi iyaguna waxyeelada ay soo gaarsiiyeen ciidanka Armenia. xiisada labada dal u dhaxaysa ayaa u muuqanaysa mid si tartiib u soo bilaabanaysa iyadoo toddobaadkii horena iska horimaad dhex maray labadan ciidan ay sii horisay xiisadii ka jirtay gobolka Nagorno-Karabakh iyada oo lagu sigtay meesha ay ka baxdo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee garwadeenka ka ahaa dowladda Ruushka. nabadilaaliyaasha Ruushka ayaa isku dayaya inay joojiyaan wax walba oo kicin kara xiisada ama dagaal dib u abuuri kara iyada oo lagu soo waramayo saraakiil Ruushka inay u kala tageen dhinacyada ishaya ee Armenia iyo Azerbaijan kuna booriyay in heshiiska xabad joojinta ahaa ee la gaaray lagu dhaqmo isla markaana nabadda meesheeda laga qaado dagaal halkii la wada gali lahaa. waxaana Ruushka uu ku dadaalayaa markan in mar kale aanu dagaal dhicin, sababtuna waxa ay tahay isagu Armenia ayuu horay garab u siinayay hadii dagaal uu dhacana waxa ay dhibaato xooggan soo gaari kartaa ciidamada Armenia oo hadda inta badan laga haysto gobolka Nagorno-Karabakh. dhinaca kalena madaxweynaha wadanka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa si kooban qoraal u soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka. waxa uu ku sheegay in iyagu ay si adag isku celinayaan oo aanay doonayn in dagaal kale uu dhaco, laakiin waxa uu tilmaamay daandaansi xooggan in Armenia ay wado taas oo keeni karta in si sax ah ay Azerbaijan uga jawaabto. jawaabtaasi ayuu kala jeeday inay tahay dagaal saf ballaaran ah oo mar kale lagu qaado meelaha Armenia ay kaga sugan yihiin gobolka Nagorno-Karabakh. Azerbaijan ayaa guulo aad u waaweyn ka gaartay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi, waxaana ay dib ula soo wareegeen magaalooyin iyo deegaano aad u fara badan oo ka tirsan Nagorno-Karabakh, halkaas oo muddo ku dhow 30 sano gacanta ay ku hayeen ciidamada Armenia. ciidamada Armenia hadda waxa ay haystaan oo kaliya meelo kooban oo ay ka mid tahay caasimadda gobolka Nagorno-Karabakh, waana sababta keentay in ay isdhiibaan oo ay nabadda qaataan iyaga oo ilaashanaya meelaha yar ee hadda ay ku sugan yihiin. laakiin ciidanka Ruushka oo loogu talagalay in ay ku sugnaadaan 5 sano gobolkaasi ayaa suuragal ah in lagu cadaadiyo Armenia inay isaga baxaan meelaha kale ee harsan si nabadgelyo ah, maadaama Azerbaijan ay ka go'an tahay inay gacanta ku soo dhigto dhammaan deegaanada ka maqan. dhanka kalena tirada dhimashada ciidamada Azerbaijan ee dagaaladii ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh ayaa gaartay 2802 askari kadib markii la helay lana aqoonsaday meedadka qaar ka mid ah askarta lalaa sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Azerbaijan. dagaalka ayaa ku dhex maray Azerbaijan iyo xoogagii Armenia ee qabsaday Nagorno-Karabakh gobolkaasi, wuxuuna ku dhamaaday guul ay gaartay Azerbaijan oo dib u hanatay gacan ku haynta deegaano aad u badan. wasaaradda ayaa goor sii horeysay shaacisay tirada dhimashada ee ah 2783. maamulka ayaa weli ku howlan sidii loo aqoonsan lahaa in ka badan 60 askari oo dhimatay, halka ku dhawaad 40 kalena ilaa iyo hadda la la'yahay. xiriirka u dhaxeeya Armenia iyo Azerbaijan ayaa xumaa wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 markii militariga Armenia qabsadeen gobolka Nagorno-Karabakh, sidoo kalena loo yaqaan Aber Karabakh oo ah dhul loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay dhulka Azerbaijan iyo sidoo kale 7 gobol oo isagu xiga. 27 Sebtembar ayay ahayd ee sanadkan markii dagaalkii ugu xooganaa uu ka dhex bilowday Armenia iyo Azerbaijan, waxaana dagaalkaas uu ku soo dhamaaday xabad joojin ay Ruushka ka shaqeeyeen
Baku waxa ay ka xoreysatay Armenia magaalooyin dhowr ah oo istiraatiiji ah iyo ku dhawaad 300 oo kamid ah deegaano iyo tuulooyin oo muddo badan ay maamulayeen ciidamada Armenia. dagaaladii dhacay ka hor qiyaastii 20% dhulka Azerbaijan wuxuu ku hoos jiray gumeysi sharci darro ah oo Armenia ah muddo 30 sano ku dhow. hase ahaatee hadda waxaa dib loo soo celiyay inta badan dhulalkii Armenia gacanta ugu jiray. xaaladaha hadda ka jira gobolka Nagorno-Karabakh waxay u muuqanayaan mid dib u keeni kara dagaalo dhexmara labada dhinac iyadoo oo dadaalo badan ay wadaan kooxda Minsk oo lagu doonayo in mar kale dagaal aanu dhicin. dowladda Turkiga ayaa kaalin muuqata ka qaadatay dagaaladii dhexmaray Armenia iyo Azerbaijan waxaana ay taageero xoogan siisay dowladda Azerbaijan iyadoo oo ka taageertay dhanka istiraatiijiyada hubka iyo sidoo kale diyaaradaha casriga ah ee Bayraktar TB2 kuwaas oo la rumaysan yahay guul walba oo ay ciidanka Azerbaijan gaareen in ay iyagu ka dambeeyeen. ciidamada Azerbaijan ayaa ilaa iyo hadda lagu daabulaya gobolka Nagorno-Karabakh waxaa la adkeenayaa difaacyadii ay ku sugnaayeen sidoo kalena waxa ay isku sii ballaarinayaan dhammaan meelihii ay kala wareegeen ciidamada Armenia. difaacyada hadda la dhigaya ayaa ah kuwa aad u adag waxaana haddii ay mar kale dhacaan xitaa dagaalo ku adkaan doonta Armenia inay deegaan kale ay dib u qabsadaan. laakiin taa bedelkeeda ayaa loo baqayaa haddii dagaalo ay dhacaan in furimaha dagaalka ay isku bedelaan gudaha wadanka Armenia waana sababta keenaysa in Ruushka mar walba digniino xoogan oo u soo diro labada dhinac si mar kale aan loo dagaalamin. gobolka Nagorno-Karabakh ayaa ah gobol aad u istiraatiiji ah waxaana gobolkan hadda deegaan looga sameynayaa dadkii horey looga barakiciyay 30 sano ka hor ee reer Azerbaijan iyo sidoo kale dad kale oo iyaguna u dhashay wadankaasi maadaama dhulka uu yahay dhul Azerbaijan dowladuna ay xaq u leedahay in cid walba oo muwaadin ah ay siiso ama ay dejiso intaba. Armenia qudheeda waxay isku dayaysaa inay sameyso dib isku habeen ciidan iyada oo dowladda Armenia ay bilowday in askar badan ay qorato sidoo kalena ay bilowday soo iibsashada hub badan iyo in ay diyaariso military adag maadaama ay fashil xoogan kala kulmeen dagaaladii dhacay. guud ahaan daawadayaal inta aynu kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka intaynu barnaamijkan mid xiga ku kulmi doono nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.